afayeenka golaha baarlamanka dowladda deegaanka Soomaalida oo weliyo ku-xigeenka afayeenka baarlamanka ayaa maanta howlo shaqo oo kormeer ku tagay dhismaha cusub ee golaha baarlamanka ee dowladda deegaanka ee dhismihiisu ka socdo xaafadda Garabcase ee magaalada Jijjiga. afayeenka iyo ku-xigeenkiisa iyo xubnihii la socday ayaa kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay dhismahan oo isugu jira xafiisyada baarlamanku ku shaqayn lahaayeen iyo howlka shirarka golaha wakiilada. marwaayaan cabdi maxamed afayeenka golaha shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida oo la hadashay SRTV ayaa sheegay in dhismahan mashruucan oo ahayd in xilligan uu heer gabagaba u maro oo dibdhac ka muuqdo isla markaasna uu marayo 41%. dhismahani in badan buu soo socdo hadda 2 sano ku dhow haddana waxa loo baahan yahay maanta waxaan u nimi in dhismihii la daba galo halku uu marayo financial iyo physically ba muhiimad ugu weyn waa taa. waxaan u yeernay contractorkii, waxaan u yeernay designerkii. marka designerkii wuxuu yidhi adigu designkii wax badan baa ka kala dhiman, designkiina muxuu ahaayay inay wada keenaan lacag baan leenahay bidaan lacagtoodii waa la siinayaa. dhismuhu wuxuu marayaa 41%. waxa loogu talagalayna waxa weeyaan inuu 80 maro waqtigan caqabado jira awgood buuna u baaqday. financial waxay marayaan 54%. marka inaan daba gallo inuu dhismahani hore noogu dhamaado anaga muhiim bay noo tahay. waa xafiiska iyagii, waa howlkii shirarka. marka sumcad buu deegaanka u soo jiidi doonaa in lagu qabto inuu dhamaadana hadda ugu yaraan sanadkan muxuu ahaayay socdo dhamaadkiisa inuu dhamaado oon ku guurno oon shirarkayga ku qabsanaa ayaan rajaynaynaa. mashruucan oo muddo sanada dhismihiisu socdo ayaa waxaa ku baxaya lacag dhan 365 milyan oo bir in ka badan, waxaana lagu wadaa in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo gabagabeeyo sida golaha baarlamanka ay howlahooda shaqo ugu gudan lahaayeen, sida uu sheegayo injineerka gacanta ku haya mashruucan. horta mashruucan waa mashruuca labaad ee ugu ballaaran ee xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismuhu uu gacanta ku hayo ama uu dabagalo. waxa ka horeeya oo ku dhaxata mashruucan jidadka. waa mashruuca labaad marka la eego xag mashruuc ahaan, xag financial ahaan iyo xag dhismo ahaanba. mashruucan wuxuu ku kacayaa 365 milyan 805 iyo 500 buu ku kacayaa. ilaa iyo hadda wuxuu dhaqaaqay 40% wuu dhaqaaqay. waqtigii loogu talagalay inuu dhamaado ay ahayd dib uga dhacay oo hadda inuu 80% bay ahayd. taasina waxay ahayd waqtigii heshiiska la galay sayidka in lagu wareejiyay ay ahayd oo sidii ugu habbooneed uu dib u dhaco ku yimid. taas oo haamihii meesha ku jiray oo meeshan oo haami ku jiray intii laga saarayay iyo intii maxayday la haweenayay sayidku uu keenay dib u dhacaasi iyo xagga financialka oo dib u dhacisna ku yimid. labadaas caqabadood ayaa keenay inuu mashruucani dib u dhaco. dhismahana labada qaybood uu ka kooban yahay waxay kala yihiin waa qayb xafiiskii afayeenka baarlamaanka iyo xafiiska baarlamaanka, qaybna waa howlkii shirarka ee baarlamaanka kaas oo loogu talagalay baarlamaanka matalaya dowladda deegaanka Soomaalida. wuxuuna ka kooban yahay meel dowladeen baarlamaanka oo iskugu yimaado iyo howlal yaryar oo qaybo kala duwan leh iyo howlalka shirka ayuu ka kooban yahay. labada qaybood weeyaan mashruucu. howlka kaleeto imisa loogu talagalay halkii barina fadhiista waxaa loogu talagalay 273 baarlamaanka ah iyo 70 ilaa 70 VIP ah ayaa loogu talagalay.